howlgalkan oo ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga magaalada Garbaare ee xarunta gobolka Gado ayaa laga sameeyay dhammaan xaafadaha magaalada. Ciidamada oo isugu jiray militariga, booliska iyo nabad sugidda ayaa fuliyay howlgalkan lagu baarayay xaafadaha laguna wareysanayay dadka degan guryaha ciidamada ay baaritaanada ka sameeyeen. Intii uu socday howlgalkan ayaa lagu soo qabtay dad aad u tiro badan kuwaas oo iyaguna la mariyay baaritaano isla markaana lagu fasaxayay inay la yimaadaan damiin. Gaashaanle sare Warfaashi Qaadan Faro la taliyaha guuto tobnaad qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta qaranka uga warbixiyay howlgalkan ciidamada qalabka sida ay ku xaqiijinayeen amniga guud ee magaalada. Warbixin aan ku xaqiijinayno amniga aan kuna ogeysiinayno shacabka degan gobolka Gado ama Garbaare area hadda jooga iyo meel kasta oo degmooyinka ah. qorshahaas oo ah in lagu sugo amniga degmooyinka gobolka Gado ciidamada qalabka sida oo iskaashanayo isku dhafan yaan hawshaas fulinaya degmo kastana waxa laga sameeynayaa baaris lagu soo qabanayo ama lagu xaqiijinayo cadowga ku jira gudaha degmooyinkaas. Arintaas oo saaka ka bilownay magaalada madaxda Garbaare ee degmada gobolka Gado gobolada degmooyinka kalena hawshaas way ka fulaysaa insha Allah. waxaan rabnaa oo ogeysiinaynaa shacabka in aysan qarin argagixisada ama abeesooyinka ku hoos jira oo ayaga dhibaateynaya oo aan danna u haynin dantoodana aan ka shaqeynayn inaysan qarsanin oo guryaha ku qarsan oo qabiil ahaan ayna u qarsanin oo wax ay maarta qaraabanimo ayna u qarsanin sababtoo asagu qaraabana uma ahan qabiilna uma ahan khiyaano oo la jooga ومارتي ونكو قرابنا يا قاب قبيل برهان أو قرابته وحكي ترى ما عقيدة يؤمن سيها جرن يؤمن سيها مركز شعبكم حالنا حقرصنين بلاي حقرصنين علينا أنا قلنا كان هذاك من قوانينا وأنا كهول قلنا وأنا قوانينا شعبك أما قفك أن قارنا صاغ غير هي تلاوة قاضينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد محمد آدن راديو TV qaranka magaalada Garbaare ee xarunta gobolka Gado.